xeerkii la soo gudbiyey iyo warqaddii soo gudbisay baa khilaaf nooga muuqday dabeetana shirgudoonkii golahaanu ku celino waxaan nidhi labada isu soo waafajiya dee halkaas aniga igu dambeysay waxaa lay leeyahay warqad baa soo noqotay dee warqadda weli baan aragaana waxaanu ka wada hadalnay wanaag iyo wixii laba guddoomiye laba goloo baarlimaan ka wada hadlay ma iyagu waaryaada waa nimanka waxaa walaaqaysaan garan maaye xeerku labada gole waa u kala gudbaa haddii wixii aanu nidhi ay ku qanci waayaan dee iyaga u banaan tahay markaa inay go-aan dambe ka gaadhaan halkaana anigu u dhaafi maayo waxaa la sheegayaa in xeerkan aad celiseen golaha guurtida waxaa la doonayaa in idinku golaha guurtida caqabad ku noqonaysaan doorashooyinka la filayay 2015 dalka ka dhacaan taasna dib ugu riixaysaan oo muddo kordhin u sameysaan xukuumadda arrintaas waxaad ka leedahay adeer waxaan ku yidhi annaga sharci qaran oo wax lagu wanaajinayo dib u dhigiisu waa nama qabato dib bay u dhigayaan nama qabataan ku leeyahay dib bay u dhigayaan annagu waxaan isnaahnaa wax wanaajiya welina waxaanu qabnaa inaanu wax wanaajinaynin see golihii kalean ka sugaynaa ee aan aragno laakiin idinku duqlaalinta iga daaya mugta ku walaaqaysa